بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan halkan salaan uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta daafaha dunida ka joogaan, gaar ahaan dadka daawada channelka Iksod Official. waxaan soo gudbin doonaa mowduuc yar oo ku saabsan Soomaalida. intaynaan mowduuceena bilaabin, waxaan soo horeysiin doonaa maansan yar oo curiyey oo aan rabo in su'aal laga soo jawaabo. maansadanna waxay ku bilaabmaysaa sida tan: Soomaaliya su'aal taala, samiciina u soo jeedsa, jawaabteeda sii diyaarsha, sumcad iyo nidaamkiina meel sare aad saartaane. hadday jiilkii soo kacayay si siman ahaaneyn, saddex baan u qaybsheeyaanan sii hor soconay, bal dhegeysta su-aasheeda. waxaan leeyahay Soomaalida jiilkoodii wuxuu u qaybsamay saddex qaybood. saddexdaa qaybood aan ku sheegi doono xaggan soo socda. waxaan idhaahday yaanan sii hor soconay, bal dhegeysta su-aasheeda. ka koowaadaan ku bilaabaya waxaa noqonayaa: saddex jid bay haystaane, balka saxan u soo sheega, codadkiina soo dhiibta, sidan tahaan ku wadaaye aan soo kala horeysiiyo. imanka waxaan idinku soo kala horeysiinayaa qaybta koowaad, qaybta labaad iyo qaybta saddexaad. kii koowaad baan ka bilaabaya imanka. markaa jiilkan soo calmadee, safka horeba istaagsee, sii deynta maqalsiinta anaa soo diyaarshe, aan sii daaya bilowgiisa. haddaba kii koowaad waa kan: jiilka usani waa kaan u doortay suubanaanta, dhalinyaro sugnaato, salaadaha ilaasho, safafka hore masaajida, salaad kasta taaganoo saatirkana baryaaya. waa jiilka koowaad. waxaan idhahda waa jiilkan anigu doortay oo suubanaanta aan u doortay. jiilka labaad baan bilaabi doonaa. jiilka u salxun waa kaan mooday sakaraadka, dhalinyaro sagaal u wada salashayo, jeebkaaga sudhanow, jaadkiyo sigaarkana sikan u jiidaya. jiilka saddexaad baan: saddexeeye kii hadhay maba sooci karaya, muushash weeye isu sudan, waana kaan u socdee, aan soo daayay wada seefa, samiciina soo jeedsha. bismillaahi bilow suuban, arday weeye sanadoo dhan, jaamacadaha usii socday, aan bal soo mashqaciye, kolba si uu soo rogay, cilmi inama dhaameese, balse waan sasabayaane, waana usoo fadhiistay, bismillaahi bilow suuban. jiilkii saddexaad weli maan soo gudbin, imankaan soo gudbin doonaa jiilkii saddexaad. waxaana idhaahday waa muushash, waa dad fara badan baa weyaan ayaan ka wadaa. ardayna weeye, arday iyo xumaan halkaas kasoo gashay markaa sheegi doonaa. marka waxaan ka bilaabi doonaa waxay ardaydu ku xumaatay. maqaaxiyuhu saro weeye, camal disho silanoo cadow weeye soodhaa, balse waata si tidhiye, jaamiciinta sudhantee, waan ku wada salalnay, aan saluugna dhalinyaro. anna waniga sidaa idhi, adna su-aal baa kugu maqan, mana sii wadaaye, waxaan sugaaba waa jawaabtii. dadkan jawaabta ka sugayana waa dadka daawaday fideogan, cid kastoo daawata, dhalinyaro amba oday, cid kastoo Soomaali ah. waan halkaa kaga imano maansadii su-aasha ahayd, oon filayana in insha allah laiga soo jawaabi doono. aan sii gudagalno mawduuceyna. Soomaalidu waxay isku salaantaa sacabada halka adduunku isku salaamayo qalbiyada. waxaan isku leenaynaa muruqyada halka adduunku isku gumaysanayo qalbiyada. qalin iyo qori waa lanaga soo dhoofsaase, waa kala hab isticmaal duwan yihiin. warqad cad ayaan inaga iyo reer galbeedku wax ku qoranaa, laakiin waxaan ku qorana ayaa kala duwan. warqadda cad ee ay reer galbeedku wax ku qoranayaan waa xaashiyaha buugaagta. ardaydeena iyo ardaydooda labadoodaba waxbaa loo dhigaa, waxay ku wada bartaan warqado. haddana waxaan kala baranayno ayaa kala duwan. waxaynala baraa amba ay ardaydeena iyo inaguba baranaa waxay iyagu noo soo diyaarsheen, halka iyaguna ay dhigtaan waxay diinteena iyo nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam ay kasoo qaateen, iyagoo u nisfaynaya saynisyahano iyaga ka dhashay. adduunka waxaa lagu jiraa tartan, waana tartan ka socda qol qura. waxaana qolka albaabadiisa ka galaya oo tartamayaasha Yurubyaan iyo Aasiyaan iyo Ameerikaan iyo weliba Australian, halka ay daaqadaha fadhiyaan Afrikaan badan si ay u daawadaan tartankooda. dastuurkeena waxa uu madaxdeena u ogol yahay inay qaataan masaariif, halka iyaguna qaataan malaayiin. cadaaladdu waxay ahayd halka keliya ay shacabka kula siman yihiin madaxda, balse imanka waa halka keliya ay madaxdu kaga adagtay shacabka. habeenku keliyata maaha wakhtiga madow, maalintuna keliyata maaha wakhtiga cad. sidaa darteed dadka madow maaha dadka aan waxba garanayn kulligood, halka ay dadka caddaanka yihiin dadka kulligood aqoon leh. wakhtigu shayna maaha, neefna maaha, biyana maaha, waxna sugayana maaha, se waa waxa naga horeeyay nagana dambeyn doona. hadba intaan wax qabsana ayuunbaa ka sheegnaan doonto weligeed.
inta aynaan waxba qabsan maalinta ayna dhaafta unbay ahayd. Wadamada adduunka kalama sinin maalka iyo hubka, se waxaan kala samaynahay dadnimada. Waxay naga batay dadaalkooda, inaguna waxaan ka badsanay hurdada iyo sheekooyinka. Haddaba aan soo koobno macluumaadka aan ka soo hadalnay. Dastuurkeenu waxa uu ogol yahay madaxdeena inay qaataan masaariif halka iyagu qaataan malaayiin. Markaa leeyahay madaxdeenu maaha dad ku xisaabsan intay dowladdu siinaysa maalin walba intay siinaysa, maaha dad qaata waa dad qaata wax ka badan wixii ay u ogolaa dastuurku. Cadaaladdu markay ahayd meesha ay dadka iyo madaxda ku kala sareeyaan, halka imanka maaha. Marka nin madaxa wax isku haysataan, isaga ayaa kaaga dhow xaggii cadaaladda, halkaas oo aad moodo in ninkii madaxiiba uu cadaaladdu iyaga u samaysantayba. Habeenku keliya maaha waqtiga madow, maalintuna keliya maaha waqtiga cad. waa run habeenku maaha keliya waqtiga madow oo 12 ayuu bilaabmaa habeenku. 1 duhurnimo waa waqti cad. maalintuna keliya maaha waqtiga cad oo maalintuna maaha waqtiga cad oo keliya oo iyadu laftirkeedu waxay bilaabmataa 1 habeenimo. marka sidaa darteed dadka madow iyo dadka cad labadooduba way wax baran karaan, wax way dadaalkooda sidoo kala badnaadin weeyeen. waxa dhici karta wadamada imka awoodda weyn in dadka waxyaabaha fiican u sameeyay inaanay ahayn dad cadaan keliya xitaa ay ku jiraan dad madow. halkaas aan maanta kaga hadlayno in uu caalamku xaqiro amba yareysto dadka madow, dadka cad ay yareystaan dadka madow. dadkii madowba dhexdoodu wadamo isku sii xaqiraan, wadamada dhexdeedu wadan kastaaba dad sii xaqiro. marka waxaa la filayaa in dadka la xaqiro badankoodu ay dadka kale wax kaga fiican yihiin xagga xirfadda, xagga mihnadlayaasha. dadka madow ee la xaqirayo inaga halka dadka Soomaalidu way isxaqirtaa, maaha wax fiican markaa in la isxaqiro. Soomaalida waxaan leeyahay in walaalnimo, midnimo iyo si wada jir wax loo qabsado oo aan la xaqirin dadka qabiilada la sooco. halkaas anu malihi markaa dowladdu inay midnimo waxa kama hadlayo. waxaan ka hadlayaa in aynaan dadka inaga dhex mid ah ee qabiilada inaga mid ah aan la xaqirin, lana yareysan. halkaas ayuu ku soo gabagabeyn doonaa mawduuceeni. intaan is aragti dambe ku kulmi doona waxaan